wasiirka wasaaradda deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ka qayb ahayd wafdi ka tirsan xukuumadda Somaliland oo degmada Ceelaf Weyn u joogay nabadeynta shaqooyinkii deegaanadaasi ka dhacay ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo kaga hortagay isla markaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag haween madax dhaqameed iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag Cabdi Warsame Xirsi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaraddaasi wasiirka deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa weeyaan wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan gurigaagii gobolkaagii shaqadaadii ayaan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatikaaga aad maanta soo boqoshadana ku timi gobolka Sanaag iyo wasaaradda deegaanka iyo guud ahaan xaaladda ka jirta gobolka oo aan runtii ognahay door wanaagsan ka qaadatay oo hawlihii ka jiray shaqadii ka jirtay Ceelaf Weyn aad bariyahan ba ku sugnayd adii iyo madaxda qaranku halka qoladii madaxda qaranku oo ku sugnayd halkan waa magaalo madaxdii Ceerigaabo waa kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsantahay soo boqoshada aad noogu timi annaguna waa ku faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa hawsha culus ah u timaadeen sida ugu khayrka badan ee ilaahay uu raali ka yahay inuu idinku guuleeyo Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxaan leenahay soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow waxqabadkaagii ku soo dhawow wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka soo dhawow baanu leenahay wasiir gacmo furan qalbi furan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil oo ka hadashay ujeedka socdaalkeeda waxaan hawlahan u nimina waa hawlaha ogtihiin waa hawlaha nabadayntana waxaan idin leeyahay sida uga shaqeynaysaan idinku gidigin bahda miidiyaduna kow ka yihiin waxaan doonaynaa inaad si xoojisaan oo nabaddu waa taa inuu ku wada noolay lagu wada noolay labada walaali wax ku kala goosanaya ilkaha waxa loo baahan yahay in la xoojiyo waayo waxa weeye amni wal iimaan aminku ilaahay horreysiyay subxaanallah waxaan leenahay dadka walaalaha ee nabadda ku wada noolaa ku soo wada caanamaalay inay halkii ku soo noqdaan oo dad walaalaha noqdaan cid maanta Somaliland idiin maqanina ma jirto Ceelaf Weyn baa la wada fadhiya intaas kadib waxay wasiiradu kormeer ku tagtay xafiiska wasaaradda deegaanka ee magaalada Ceerigaabo iyadoona halkaasi kulan kula qaadatay shaqaalaha wasaaraddaasi Wayoonis Sheekh Axmed Universal TV Ceerigaabo.